xildhibaan Baashi Muuse oo Soomaalida Norway u dooratay golaha deegaanka Oslo ayaa wuxuu ka hadlay dhibaatada haysata waalidiin Soomaaliyeed oo laga qaatay caruurtoodii. Baashi ayaa yiri Jan Bøhler waxa weeye waa hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Oslo Arbeiderpartiet hogaamiye ka yahay isla markaana wuxuu ku xigeenka guddiga cadaaladda runtii guddiga cadaaladda arrintan way ka hadleen waxaana la isku dayayaa si loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhaxeeya baanabaanaha iyo Soomaalida waa qodobka koobaad dumarkan xanuunsanaya ee dhibaatadu timi waxa hadii ilaahay ma loogu talagalay in caafimaadkooda la eego in xiriirka carruurta dib loo eego marka guddiga loo saaraya aad iyo aad looga shaqeynaya sidoo kale Jan Bøhler oo ku hadlaya af Norwegian ayaa wuxuu u sheegay war cusub in uu og yahay dhibaatada dhextaal baanabaanka iyo Soomaalida. Jan ayaa wuxuu yiri waxaan ballan qaadaynaa in baanabaanka uusan ku degdegin waalidiinta Soomaaliyeed oo la siiyo koorsooyin uu ku fahmayo dhaqanka Soomaalida. Jan oo af Norwegian ku hadlaya ayaa ereyadiisa waxaa kamid ahaa Vi har tatt opp det problemet fordi vi kjenner jo somaliske kvinner og somaliske samfunn i Oslo godt, og det vi prøver på nå og har vedtatt nå er at vi vil bygge opp mer kunnskap i barnevernet om somaliske familiers tradisjoner, om hvordan de lever, slik at man bedre kan forstå hva som reelle ting som man må ta hensyn til, slik at man ikke skal frata dem barnet og få mer kunnskap om det før det skjer drastiske ting som kan ødelegge kvinners liv og så videre. Så vi ønsker å bygge opp kunnskapen i barnevernet om somaliske forhold, somaliske tradisjoner.